xiisada ka taagan bariga dhexe marba marka ka dambeyso way sii xoogeysanaysaa. Inta badanna quwadaha ku loolamaya halkaasi ha ugu badnaadaan Mareykanka iyo Israa'iil ayaa inta badan hoggaan ku haya dagaalka ka socda bariga dhexe dhinac marka loo fiiriyo. Carabtiina weli waxay ku jiraan caajiskii lagu ogaa oo aan xad lahayn oo sida ay ku falanqeynayaan ama xiriirada istiraatiijiga ah dhanka siyaasadda iyo dhanka ciidamada ay sheegayaan. Runtii waxyaabaha saameynta leh waxaa waaye hadalkii saameynta lahaa Trump ka soo baxay tan iyo maalnimadii shalay ilaa iyo iminka laga dareemayo halkaasi maadaama isbeddel go-aankaasi ku dhacay oo ay soo galeen wadamada carabta sida gaar ahaan Qatar dhexdhexaadin ay soo galeen. Xalay ayaa aad ula yaabanaa go-aankaasi oo waxaa runtii laga naxsanaa xaaladdu sida ay isku beddeli doonto. Trump oo sheegay in uu dhulka la jarayo Iiraan wixii laakiin ka dambeeyey go-aankaasi soo baxay shalay. Xalay ayaa wadahadallo waana dhex gashay dowladda Qatar iyo dowladaha kale dhexdhexaadinta ku jira sidaa ayaa marka dagaalka u baaqday. Dhanka kalena dagaalkii ka socday Gaza wata albaan intaan qasa aan u guda gelin waxaa jirta in Mareykanku uu sheegay in dagaalkii Iiraan la soo afjaray Iiraanna arrintaasi way beenisay oo wax heshiis ah weli lama garin bay leedahay bal saameyn noocee ah ayay arrintaasi yeelan kartaa? waxaa la isku hayaa waxay tahay waa siyaasadda inta badanna waa dagaal bilaa hub ah. Ayada ayaa saameyn weyn marka inta dagaalka la gaarin dhanka warbaahinta iyo dhanka kaleba siyaasiyiinta hadalladooda culus soo baxayo waxay qayb ka yihiin dagaalka socda. Iiraan waxay diyaar u tahay dhinac walba haddii siyaasadda hadday noqoto diyaar ayay u tahay haddii dagaal noqdona mar walba way diyaar garoobeen. Runtiina mar walbana hadallada isdiidan oo ka soo baxaya Trump caalamka ayaa aad ula yaaban. Iiraanna mar walbana diyaar waxay u tahay inay beeniso. Warbaahinta Mareykanka ayaa mar walba waxay qorayaan in Iiraan dagaalka ay ku jabeen in Iiraan inta badanna oo diyaaran u ahayn wadahadallada marka hadalkoodii ayaa isdhaafay ha yeeshee laakiin Iiraan waxay ku taagan tahay mowqifkeeda ah inay sharafteedii iyo dalkeeda lagu soo duulay. taa waa mid marka arrimaha wadin marka lasoo aruuriyo Iiraan waa lala yaaban yahay oo dulqaadka ay sameynayso iyo siyaasadda ay la soo baxday iyo weliba isdifaacista ay la soo baxday weli Mareykanku wuu la yaaban yahay aad ayuu la yaaban yahay. wata ustaad waxaa jirta in Iiraan mar kale ay ku hanjabtay inay xirayso marinka Hormuz bal haddii Hormuz ay mar kale xirto dhibaato noocee ah ayaa soo wajihi karta is leedahay Iiraan? marinka Hormuz waa marin istiraatiiji ah. mar walba dagaalka meel ayaa laisla aadayay laakiin Hormuz oo uu ka duwan yahay runtii istiraatiijiyada la adeegsanayay waa mid aad u weyn oo Iiraan runtii barbartan kula galayso reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka. Hormuz waxa uu qayb ka yahay marinada inta badan maraakiibtu ay maraan. haddii la xirana keliya saameyn kuma yeelanaysa halka lagu magac daray mandiqada bariga dhexe waxa ay saameynaysaa dunida oo idin maxaa yeelay 3 meelood meel ayay marayaan ganacsiga dunyada inta badan loo iibgeeyo suuqyada waaweyn. marka Hormuz in la xirana waxaa sabab u ahaa Mareykanka kadib markii uu dagaalku u bilaaway Iiraan 3 maalin ka hor dagaal uu ku qaaday sidaas ayaa loo xiray oo shalay ayaa lagu dhawaaqay Iiraan war ka soo baxay Tehran ay ku sheegeen in Hormuz ay xireen. xirnaanshahaasina oo uu sii socon doonaa ilaa iyo wadahadallada dib loogu laabto marka ilaa iminkana sida la sheegayo way xiran yihiin marinkaas. waa tahay dhanka iyo Gaza maxaa ka cusub Netanyahu waxa la leeyahay go-aan culus ayuu ka soo saaray xaaladda Gaza. Gaza weli dagaalka halkaa ka socda wuu socday inkastoo yaraaday ha yeeshee laakiin wadahadallada iyo waanwaanta iyo xabajoojinta dabcan maadaama adduunka loo sheegay haddana xabadda ma istaagin oo dhimashadu way socotay. laakiin waxaa istaagay waxay tahay daneyntii la daneyn jiray Gaza
wadamada carabta iyo wadamada muslimiinta ay daneyn jireen. Marka war weyn ayaa soo baxay markuu Netanyahu aan idhahdee Trump uu hadlay uu yidhi waxaan dhulka dhigaynaa Iran. Trump aan dhahay Netanyahu ayaa isagana go-aan qaatay in Gaza uu weerari doono, laakiin weli weerarkaasi dabcan lama shaacin. Ha yeeshee laakiin waxaa la arkayay in duqeymaha oo ay ka socdaan Gaza, hadalkii weynaa ee Netanyahu ka soo baxay weli lagama dhaweenin. Warbaahinta Al Jazeera ayaana daqiiqado ka hor soo bandhigtay in duqeymo ay jiraan, laakiin duqeymo waaweyn aysan jirin. wixii saacadaha soo socdana haddii hadalka Netanyahu ka dhaweenayo in kalena waa la ogaan doonaa. saameyn noocee ah ayay ku yeelan kartaa duqeymaha Israa'iil ay ka fulinayso Gaza wadahadaladii u dhexeeyay Iran iyo Mareykanka? Saameyn weyn ayay yeelan doontaa oo waxay saameyn ku yeelan doontaa wadamada muslimiinta caalamka oo idil ayay saameyn ku yeelan doontaa, maadaama weli dhulka barakeysan oo gumeysi uu ku jiro daanta galbeed. Dhulka kalena waa uu barakeysan yahay sida qur-aanka lagu sheegay oo Falastiin ku yaala. Marka haddii Gaza mar walba lasii duqeynayo dadkana mar walbo la xasuuqayo, taa waxaa ceeb ku ah guud ahaan carabta. Turkiga ayaa war soo saaray uu sheegay in dhaqaale looga baahan yahay lacagtaas dhiigga la daadiya magdhow ay ka bixiso Israa'iil oo ayagu mar walbo ay caawiyaan uu sheegay. Laakiin marka waan arki doonaa haddii indhaha laga laaban doono sidii hore loogu laabtay iyo haddii tallaabo lagu qaadi doono Israa'iil waan arki doonaa.